الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدحوينها كحوغيكي هوري جمهورية الصوماليلاند أحمد يوسف ياسين xubnaha golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee kala duwan safaaradaha dowladaha aan saaxiib nahay dowladda ingiriiska iyo safaaradaha kale ee fadhiya saraakiisha taliyaha ciidanka saraakiisha ciidamada taliya ku-xigeenada madaxda hogaamada taliyayaasha qaybaha saraakiil xigeenka alifleyd iyo dableyda ciidanka booliiska dhammaantiin salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa maanta guud ahaan ciidamada booliiska taliyahooda iyo taliya ku-xigeenada saraakiisha taliska guud taliyayaasha qaybaha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyd iyo dableyda sanad guurada 25aad howlaha ay qaranka u hayaan iyo ujeeddada ciidankoodu u asaasan yahay oo ah adeega bulshada ciidanka jamhuuriyadda somalilan dhammaantood waan hambalyeynayaa howlaha ay qabteen ee faraha badan ee halkan laga soo jeediyeyna waan ku hambalyeynayaa ilaahay waxaan uga baryayaa sanadka ku xiga ciiddeeda inaynu nabadgelyo iyo naxariis iyo horumar aan ku gaadhno. waxaan kaloo hambalyeynayaa kooxda goodir riwaayaddii wanaagsaneed ee halkan inooga soo bandhigeen. madaxweyne ciidanka booliiska oo da ujeeddada uu u asaasan yahay ay tahay adeega bulshada xaaladda maanta uu marayo sidii hadda looga warbixiyey aada iyo aad bay kor ugu kacaysaa howlgalkooda iyo howlqabadkooda iyo howlaha ay maanta gacanta ku hayaan sidii taliyahu uu sheegay iyo madaxa howlgelinta booliiska qalabadaynu halkan ku aragnay ay soo bandhigeen waxyaalaha imika aadka uga shaqeeya qeybta dambi baadhista oo gobolladii hore intooda badan imika ay ka hirgaleen inta kalena ay sanadkan 2019 qorshaysan tahay inay ka hirgalaan tababarkii ciidanka ee dugsigooda mandheera akademiga imika la doonayo imika already waynu dhagax dhignay. waxaan rajaynaynaa sanadka cusub kulliyadda ciidamada oo aynu kaga kaaftoonno in saraakiisha ciidamada meelo kale lagu soo tababaro in iyadana maxaan ku dhahdaa in la tababarayo aynu halkeena ku tababarno. aada iyo aad baan anigoo magaca wasaaradda ku hadlayo u hambalyeynayaa ciidanka booliiska natiijada wanaagsan iyo howlaha ay galeen. waxaan kaloo aada iyo aada u hambalyeynayaa taliyaha ciidamada qaranka xafladana fadhiya oo ciidanka booliiska ay iska kaashadaan howlaha nabadgelyada ee xasilinta ee isku dhaca iyo maxaanku dhahday khilaafaadka ka dhex dhaca beelaha gobolka sool sanaag iyo meelo kale oo fara badan ay qeyb weyn ka qaataan hawsha ciidanka booliiska gacanta ay ka siinayaan. aada iyo aad baan u hambalyeynayaa ciidamada booliiska waajibaadkooda faran iyo qalabkooda oo imika aada iyo aada u kobcaya wixii baahiya ee kale hawshu ma dhammaystiranto baahidu isma taagto sida imikaba loogu dadaalo ayaynu aakhirkana ugu dadaalaynaa. mushkiladaha hadda halkan uu taliyaha booliisku ka soo sheegay oo qaranka aafada ku ah ta dhallinyarada marka laga yimaado waxa ugu culus waa dhulka la ysku haysto. madaxweyne wasaaradda iyo daakhiliga iyo taliska ciidanka booliiska waxaan qorsheynaynaa hadda imika sanadka cusub in arrintaa gacanta la saaro. arrintaa waxaa hor taagan waan doonayaa bulshada inaan uga digno dadka dhulka isku haystaa iyaga oo ogol ayay maxkamadaha dalka tagaan. maxkamadaha dalku markay soo xukumaanna ninkii maxkamadda ogolaaday ee maxkamaddii gobolku xukuntay
ee tii degmadu xukuntay ee rafcaankii gobolku xukumay ee maxkamaddii sare xukuntay marka isaga la xukumo ayuu intaasoo dhan haddana ka cawdaa iyadoo la raacayo qawaaniinta dalka. waxaan doonaynaa inaan dadkana u sheegno ciddii dhibta keensataana iyadu mas-uulka ka tahay in la fulinayo qawaaniinta, in ciidanka biliisku sharciga isagoo raacayo uu fulinayo, ciddii ka hor timaada ay iyadu tahay dembiilo qaran oo ku tumanaysa sharciyadii dalka. qof waliba waxaan xasuusinayaa bulshada waxa ku qoran anigoo miyirkayga iyo maankayga qaba inaan maxkamadda kiiskayga geeyey, inuu arjigiisa sidaa ku qortay. iminkana waxaa la doonayaa isagoo miyirkiisa iyo maankiisa qabo sharcigii xukumay inuu sidaa ku qato dalka iyo dadka iyo ciidanka uu dhibta ka daayo. ciidamada biliiska dad badan baa kaga dhintay, dhibaato fara badan baa ku dhacday. doorkana waxaa lagu fulinayaa ayadoo sharciga la raacayo. ciidanka biliiska waan hambalyeynayaa, aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa. waxaa ogaanaysaan qarankan xil baa u haysaan, ciidanka qaranka ee biliiskaa tihiin, nabadgelyadaa gacanta ku haysaan idinkoo ciidamada kale qalabka sida kaashanaya. waxaanu idin faraynaa oo idinku adkaynaynaa ciidanka biliisku inuu qarannimadana ilaaliyo, qarankana u adeego, inta wanaagsanna ilaaliyo, inta ka xunna uu ka qabto.